way hay shantaas qodob dabcan bal waynu maqalnay ama waynu daawanay qodobka lixaad aabaha jacaylka muxuu yahay way hawa ma santahay magan oo hooyada jacaylka isku bedeshay caashirad taxanana siinaya dabcan qodobka ayaa talaw soo jiitay farxadaada iyo erayga isku leeyihiin macnaha waay way isleeyihiin miya aad isku leeyihiin marka xiriirka intaan ku guda jiro maxaan kale oo qofka aan jeclahay aan uga tagi karaa wuxuu yahay is weydiinaya macnaha okay qodob kale You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عن داوديال ومركلة يجنال كيني جمع مكان ما أنت شيء aad u xiiso badan oo aan rajeynay in taladaasi ama su'aalahan aad isweydiinayso aad qaadan doontaan ayaan idin soo wadnaa ka hor subxaanallaah hay bashka nimcad baa ma santa adiga saaxiibada janalka ku taxan ugu horeyn waxaan leeyahay janalkaas farxad leedah halla kala kiciyo subscribe-ka like iyo comment-ga laga dhiso waliba barnaamijkan dabcan bilowday waa barnaamij qurux badan oo saaxiibada ay kiili doonaan si xiriirada ay qurux badnaadaan dhalinyarada ay romantic u noqdaan aanan leelin dhalinyaro ka tagta oo xiriiradu dabcan muddo kooban oo ku dhisnaado marka waa barnaamij muhiim ah oo talooyin iyo faa'iidooyin badan xambaarsan marka jacayl wuxuu yahay dhan walbo waxa dhan ka baran doontii marka la socda maanta waxaan ka hadlaynaa 6 qodob ee ay tahay inaad isweydiiso ka hor intaadan soo gabagabeynin xiriir ama qof aad adigu jeceshahay 6 su'aalood aan dhahe ee ay tahay inaad isweydiiso ka hor intaadan ka tagin qof aad jeceshahay qodobkooda adan ku daahay maga waa maasantaa qodobka koowaad waxa uu noqonayaa qofkan sababta aan ugu tagayo macnaha maxay tahay sababta aan ugu tagayo qofkan anigu qaaliga waa ina isweydiisaa sababta waa ina ku soo baxdaa sababta jirta sababta qofkan kalifi karta isagoo dhiig u ah qaaliga ugu ah inaad yani ka tagto dhalinkaaga waa jecleedeen xaaladda macaan ahayd dabcan waa iska baxa kaliya ma ahaanay sabab ayaa la rabaa in la cadeeyo proof sababta uga tago waa maxay isweydii next situation ku sheega marka ay tahay inay isweydiis nolosheed manage garan karaa ma maamul karaa haddii qofkan yani uu iga tagaa nolosheed yani maamul karaa yani ma noolaan karaa la'aantiisa ma ka maarmi karaa iyadana waa question kamida su'aalaha la rabo inaad isweydiisid kor inta aadan ka tagin qofka aad jeceshahay sidoo kale waa inaad isweydiisaa qofkan future ma kala ha oo may maybe waxa ku soo baxaysa inaad future ka lahayn soo qofkaas waa iska fasaxaysa adiga meel uu ku qotoma ma jirtaba waxa ku soo baxaysa adiga kaliya rabitaankii jacaylkii waxa dhan inuu kugu jiray already waxa la mogtahay kaliya waalo oo wareer waxa lagu la waasana hadii wax kula waast aadahaynin you may live macna qofkaas waa ka tagaysaa qodobada oo yani qofku isweydiinayo ee Bashiiro ee qayb ka tahay qodobada kale waxa kamid ah marka qofka ani farxad mu ii sameeyay qof kani farxad siinayay jawi macaan dabcan gelinay ma yahay qofkan salahan ma ka shaqeynaa waxyaaba ani farxadeeda inta xiriirka yani aan la wado wax farxadeeda salahan ardayga ahay horumarkeega maxaa lahaay ma ka kaabay dhinaca oo dhaqaalaha oo kale waxyaabaha diida gifti ah oo farxad yani qayb ka noqonayo ma ku keenay ma ka ilaalinayo erayada yani laga yaabay in dhaawac ka ilaalinay ma qof ku dabacsan oo mar walba naxariisa ku muujinaya ma aha waa ina isweydiisaa wuu ahay waa macquul in xiriirku kula sii jiro laakiin hadii aysan soo bixin waxyaabaha soo kale adiga aad tabanayso ama qofkii uu mar walba ku taaleynta kugu noqon lahaa ina ka tagtaa laga yaaba oo qofkaas adiga markaas kaliya aad jecleeda laga yaaba marka waa ka tagaysaa dhowr qodob hadda waan sheegnay qodobada kale waxa kamid ah horta ani xiriirkiisa ku ahaa xiriirkiisa ku ahaan inta qofkan ka tagay
xiriirka barafagti ku ah oo ilaalin jiray oo daacad u ahaa miya ahayd mise xiriirka wuxuu iska ahaa dabcan iska sameey waa la sameeyaa oo qalbiga hadda kaama jirin taasna waa muhiim waayahay shantaas qodob dabcan bal waynu maqalnay ama waynu daawanay qodobka lixaad aabaha jacaylka muxuu yahay waayahay ma santahay magan oo hooyada jacaylka isku bedeshay caashira taxanana nasiinaya dabcan qodobka ayaa talo uu soo jiitay farxadaada iyo eraygiisa isku leeyihiin macnaha waay waslihin miya aad isku leeyihiin marka xiriirka intaan ku guda jiro maxaan kale oo qofka aan jeclahay aan uga tagi karaa wuxuu yahay isweydiinaya macnaha okay qodob kale wuxuu yahay qofkan ma yahay qofkii ugu saxnaa dabcan aan haystay oo qofkii bashiir ma yahay qofkii saxda ahaa ee ani nolosha ila wadaagay aan rabay macnaha aadiyad already waxa ii soo bixis marka isweydiinayo inta xiriirka ka tagin wuu yahay ma ahan aadiyad way ku kala cadaanaysaa macnaha de waxa dunida joogo dhan maratid qof gooniya aragtaa qofka goonida rabtana macnaha asaamii shuruudo ayaa kugu xiran marka qofkaas asaamahaga u fiirinaya haduu ku soo baxana waa qofkii perfect ku ah mustaqbalkaaga aad ku aamin lahayd haduusan asaamaha lahaynna wadada ku marka waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi saaxiibadeena ay ka faa'iideysteen oo ay anfici doonto inay isweydiin doonaan koor xiriirkooda intaysan soo gabagabin isaga boodin xiriirka qofkan isaga tagine qodobadan u fiiro sababahaas aad iyo aad waxaan ku leenahay way jiraan qodobo kale oo aad u baahan tahay inay isweydiiso waa kuwa adiga maskaxdaada ka dhex guuxaya sida darteed qaybta commentiga waxaad noogu soo qortaa qodob aleeyahay oo ku wacnaa inaan ku soo qaadano laakiin waqtigu inoo saamixi waa inaan sheegno okay waliba waxaan ku darayaa qodobadan aan soo xalno lixda waxa waa qodobadii ugu miinsanaa oo isleenahay dabcan laba qof oo kala tagtay waa ay tahay inay isweydiiyaan marka adina hadaad heeso waa ku soo dari kartaa qaybta commentiga aad baan u mahadsantiin waxaan idin leenahay intiinaan subscribe eenaan dhihin oo yani channelka subscribe وصنو هاي سبسكرايب والله شيء عادي واي وناقي wax farxad ay ku wada yaa heli karaya waan jeclaa marka gambaleel kitaabta like ta saara waa Bashiir iyo nimcaan bugan oo idin leh sidaas nabadgeliya You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.